wada xasuuqnay wala dhuxushu may noqon maya 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 qiimihii xagaafnay xalifku yamudhale maya 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 intuu xalku dhow yahay kawantooba xumaho xanaane deegaanko xakamee waxyeelada xanaane deegaanko xakamee dirti wada xasuuqnay wala dhuxushu may noqon maya 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 qiimihii xagaafnay xalifku yamudhale maya 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 intuu xalku dhow yahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بضع وضيع اللمانتين به كسور هذا متكمل برنامج الديجان كتلفزيون كقرك السومالي اللي أنا عمين تناقل عن دي سوق البنو تضبط كان هدية بقدر برنامج الديجان كوحنا كسور قادم دونا وحيابها كذا شاء صح حميد الديجان كاب تدفوا حالي والجراني تدودوا وعليا دم قرن كلي يا خي تديد السيشدا دم بينا السمين وين الدين لخاين حد الله قدر فيه في الحين دي مكيسي si nooluhu ugu noolaado deegaankiisa sida ugu habboon waa inuu deegaanku ahaadaa mid ka maran wixii dhibaato cudurro iyo xanuuno u keenaya noolayaasha kala duwan ee ku dhex xuman waqtigan waxa uu muuqdaa deegaanku mid ay qalin daartay saxaafimo dhinacyo badan ka haleeshay inta badanna ay sabab u tahay isla noolihii deegaanku hoyga u ahaa ayna ahayd inuu isagu daryeelo dhulka hawada badda iyo wixii lamida dhinacyo badan ayay ka dhalataa saxaafimada deegaanku waxaana ka mid ah qashinqubka magaalooyinka wasaqda lagu daadiyo badda ama lagu aaso dhulka meelahan suuliyada laga isticmaalin qiiqa warshaduhu hawada ku sii daayaan carraguurka dhulka digada xoolaha iyo waxyaabaha lamidka haddii aynu isku dayday inaynu qodobadan aynu soo sheegnay aynu mid ugu hadalno ugu horreyn waxaynu soo qaadan doonaa qashinqubka magaalooyinka waxa magaalooyinka laga isticmaalaa qalab cunto iyo agab badan oo marka ay duugubaan la tuuro kaasoo meel kasta oo la geeyo qashin ah waxaa kale oo jirtay in guri kastoo magaalada ku yaala iska soo saara qashin oo uu dhigo guriga hortiisa ama se halka ugu dhow ahaan qashin haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadin waxaa ka dhasha cudurro sida shubanka hargebka waxaana ka dilaaca cayayaanka cudurrada faafiya sida duqsiga iyo baranbarada haddiiba la qaado meel kale la geeyo waa goob deegaanka ka tirsan sidaasi awgeed waa in la helaa nidaam lagu basriyo qashinka wasaqda lagu daadiyo badda ama lagu aaso dhulka wasaqda lagu daadiyo badaha ama lagu aaso beriga ayaa qayb weyn ka qaadata saxaafimada deegaanka waxyaabaha ay sababaana waxaa ka mid a cimilada oo kululaata dhulka wasaqaha noocaasa lagu aaso oo aan wax dhiri ka soo bixin iyo dhibaatooyin kale oo soo gaadha noolayaasha sabada ku nool meelahan suuliyada laga isticmaalin waxa saxaafimada ugu darani ka dhacdaa deegaanadan suuliyada lahayn sida tuulooyinka deegaanadaasi waxay dadku ku saxaroodaan bannaanada taasoo urtaya foolxumada kasakow xilliyada roobku da'ayo daadku qaado kuna shubo barkadaha iyo meelaha kale biyuhu fadhiistaan dabadeedna dadka iyo xooluhuba ka cabbaan taas oo ay cudurrana ka dhashaan sidaasi awgeed waa in loo howlgalaa sidii loo hagaajin lahaa saxada iyo nadaafadda deegaanada noocana iyadoo lagu dadaalayo in loo qodo suuliyo iyo in wacyigooda kor loo qaado waxayna habboon in meelaha laga cabo sida barkadaha laga sameeyo meelaha ka durugsan tuulooyinka gaar ahaanna jihada biyuhu ka soo durdurayaan ama ka yimaadaan marka laga eego degsiimada waayo haddii laga qodo dhinaca biyuhu u socdaan degsiimaduna ka xigto dhinaca biyuhu ka imanayaan waxa ka buuxsamaya qashin qiiqa warshaduhu hawada ku sii daayaan wasaqda warshada ka umibaxda ayayna si weyn wax uga bedesha hidasamida saxada deegaanka umibaxan waxa uu keenaa in cimilada adduunku si degdeg isu bedesho oo kululaato waxaana la sheegay in gibilka hawada ogsajiinta ah ee nagu xeeran dalooshamay uuna hawada ku batay kaarboonku taasoo keentay xaalado kala duwan iyo xanuunaba sida cabudh neef qabatow iyo xasaasiyad ku dhacda xubnaha neef mareenka iyo wixii lamida carraguurka dhulkii oo carraguur badani ku dhacay awgeed waxaa xaddaaf noqday siigada iyo buska ka kaca waddooyinka iyo dhulka bannaanba taasoo sababtay inay bataan xanuunada hawo mareenka ku dhaca digada xoolaha oo faa'iidooyin badan u leh dhulka oo nafaqaysa dhirta iyo ciidaba ayaa mararka qaarkood gaar ahaanna marka ay fargal la samayso biyaha keenta dhib badan oo dhimasho keenta tusaale ahaan ceelasha ku yaala meelaha didibka marka aan muddo dheer laga cabin ee digadu ku daadato waxaa ka samaysma hawo sun ah oo ka dhalata falgalka biyaha macdan
iyo digada xoolaha hawadan waxaa loo yaqaanaa biir waxayna dishaa cid kasta oo ceelka gasha haddaba si arrimahaasi wax looga qabto waxaa loo baahan yahay in laga howlgalo arrimahaasi dhowaan waxaa magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ka furmay kulan lagaga hadlayay sidii loo dejin lahaa qorshe midaysan oo wax lagaga qabanayo qashinka noocyadiisa kala duwan waxa soo qaban qaabiyay kulankaasi ururka badbaadinta deegaanka ee Goliso arrimaha deegaanka ka shaqeeya waxaana ka qayb galay xubno ka socday wasaaradaha deegaanka caafimaadka warshadaha dawladaha hoose shirkadaha ka shaqeeya qashin ururinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka warshadleyda xisbiyada qaranka ardayda jaamacadaha iyo ururada bulshada waxaana uu socday muddo hal maalin kulankan waxa la isku leeyahay qaabka ugu mudan ee loo maareyn karo qashinka tirada badan ee buuxdhaafiyay magaalooyinkeena kaas oo sababay sax xumo iyo bilic darro isbarkan ugu horeyntii waxa furitaankii kulankaasi ka hadlay Axmed Cabdilaahi Cawaale agaasimaha ururka badbaadinta deegaanka ee Goliso waxaana ka warramaya waxa kulankan u daaran yahay run ahaantii ma seminaarkii ugu horeeyay ilaa 3 seminar baanu ka qabanay arrimahan qashinka ama xashiishka adag meel kasta ba ka soo baxaan ama guriga ka soo baxaan ama warshadaha ka soo baxaan ama wasaaradda caafimaadka ka soo baxaan ama meel kale ka soo baxaan saddexdaas seminar waxaanu ka wada hadalay sidii mashkiladahan ka soo burqaday xashiishka adag wax looga qaban lahaa marka waxaanu ka soo jeedinay fara badan oo aynu kaga hortagayno sidii aynu uga maaragtay xashiishka meel uga gaar lahayn natiijo wanaagsan uga gaar lahayn kuwa kimikada sidoo kale aanu uga qabanay dubu dhareynta saasoo kale aanu uga qabanay arrintan deegaanka iyo badbaadinta deegaanku aad bay u ballaarantay mid walba goonideeda ayaanu maaragtay anagu urur ahaan ugu dadaalaa inaanu isugu yeedhno dadka khusayso dhan si ay iyagu maskaxdooda intay u tuujiyaan dabeetana ay mid walba wixii kaga habboon uu go'aanka qaybtiisa uga qaato marka maanta waxaan doonaynaa inaynu si wanaagsan oo macquul ah oo caqli gal ah arinta u qaadaa dhigno ugana wada hadalno ayaanu anagu urur ahaan doonaynaa inaanu idinka idin siino maaragtay fikirkiina inaad ka dhiibataan idinka dhexdiinana wax ku heshiisaan dadweynaha ina dhagaysanaya ama ina daawanayana aydun soo bandhigtaan dhaliishu meeshay taalo iyo sida wax looga qabanayo iyo xalku wuxuu yahay waayo Soomaaliland oo dhan bay dan u tahay idinkay dan idin tahay shirkadaha waxay u tahay shirkadaha wax goreeya kuwa kaleba dadka guryaha joogay dan u tahay inta xashiishku ku jiro ayuu cudurkuna ku jira baa la yiraahdaa marka annagu maanta waxaanu idin siinaynaa chance wanaagsan oo ku wada hadashaan arrintaana kaga wada hadashaan kana wada gaadhaan go'aan waayo xashiishku waxaan tusi doonaa film halkan ku yaala sida xashiishku lacag u yahay anigu adduunka waxaan ka imi meel la yiraahdo Sweden xashiishka adduunka dhan bay soo dhoofsataa iyadu oo lacag ka hesha waxayna noqotay wadamada ugu wanaagsan ee aad iyo aad u ilaaliya nidaamkan isdhexgalka magaalada iyo deegaanka ama dhirtu waxay u jirtaa magaalada guriga daaqadiisa waxa soo waa kayn baad sanaysaa weeyaan agaasimaha waaxda fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka wasaaradda warshadaha Somaliland Duux Cabdilaahi Cabdi agaasimaha ururka Golis kadib sanadkaas ka hadlay ayaa ka warramay dhibaatada uu qashinku ku hayo dalkeena waxaan agaasimaha ka tirsan wasaaradda warshadaha agaasimaha waaxda badbaadada iyo fayadhowrka waaxdan badbaadada iyo fayadhowrka runtii inay ka mid noqoto wasaaradda warshadaha marka hore hindiseeda aniga lahaa oo keenay in waaxdan ay ka mid noqoto wasaaradda warshadaha oo loo baahan yahay environmental protection in la ilaaliyo deegaanka iyo waxyaabaha la taxalluqa ee warshadaha ka soo haraya sidoo kale waxaan ay xubin ka tirsan gudahoosaadka bilicda magaalada Hargeysa in badan baanu runtii ama seminar ha noqoto ama kulan aan isugu nimid ha noqotay in badan baanu ka fikirnay bal sidii aanu waste management meel ugu tiirin lahayn lixdaas nooc wasaaradda agaasimaha ka ahaa iyo intii aan guddiga gudahoosaadka bilicda Hargeysa ku jiray intaba shirar fara badan iyo kulamo fara badan baanu isugu nimi inaanu xashiishka bal meel ku tiirino ilaa dawladda hoose ilaa maayirka ilaa xoghaynta ilaa wasiirada shirar fara badan baanu ka galnay markii bacda la joojinayay xubnihii bacda joojinayay baan ka mid ahaa laakiin bacdii aanu joojinay bal sidii aanu oran lahayn haraageeda iyo qashinka soo haraa islamanaan helin adduunka qashin ma jiro laakiin waxaa jirta wikilis inaga nagu jiray tamar darro
aynaan xashiishkeennii maarayn u helin taasna dee kuma dhaliilino halkaasaynu dee maraynaayo dunida horu martay ma gaari karna inagu awoodeenna iyo socodkeenna iyo waxqabadkeenna dee waa ogtihin isku canaanan mayno maxaynu qashinka u maarayn weyne baan u malaynayaayoo wax kale oo fara badan oo qashinkii ka muhiimsan baa inaga dayacan laakiin isaga laftiisu waa ishuu taagan oo inaynu wax ka qabanno u baahan markii aanu ka wada hadlaynay sidii bacda loo joojin lahaa ama qashinka waste managementka shirarkiisii xilliyadii aanu ku jiray bahalkaas sidii allaale iyo sidii loo geli lahaa ilaa iyo iminka meel layslama dhigin iminka iska fogeeya un mooyaane dee xal kaloo aynu haynaa ma jiro iska fogeeyaydina meel aynu leenahay baynu geynaynaa dee meel cid kale leeda geyn weynu halkaasuu muu inoo olaya inagu inagu sugayaa haddii aynu aasna waa miino aasan haddii aynu gubnada ka daran si allaale iyo saynu bahalkaa horta nidhaahno in tala qaran laga yeesho oo laysaga yimaado intaynan iyo in ka ballaadhan ay isu timaado oo xashiishka sidii aynu oran lahayn sidaa abaaraha tala qaran looga yeeshay isba abaaruhu ka mid yahay tala qaran looga yeesho ayaa horta inagu waajiba xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin dheeg oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida ee somalilan oo isaguna goobjoog ka ahaa kulankaasi ayaa soo bandhigay aragtidiisa la xidhiidha wax ka qabashada qashinka haddii la doonayo xashiishka magaalada inuu ka nadaafad garoobo waxaa dadku yidhaaheen aqal walba annaga ka qaadayna bay ku yidhaheen kolkii hore qolada qashinku aqal walbana uma tegi karaan heshiiskaasi khalad buha waxa weeye xaafad walba inay hal baloor ka sameeyaan oo inaan xaafad walba halkaa dhig xashiishkaaga habeennimada dhig subaxdiina waa la qaadaya boos xaafad walba in boos la sameeyo la yidhaaho islaan walayba halkaa soo dhig xashiishkaaga maalmada yuu iskaari laba cisho hadduu iskaari maalin saddexaadda hala qaado halka ay u dhimanaysa inaynu taabanno weeye inaynu dulxaadsano maaha in la yidhaho waxbaa la qabto xashiish baa la ururiyey maaha waxa weeye haddii la doonayo inaynu magaaladeena xashiish ka nadiifino oo islaan walba laga gar helo oo islaan qofkaa haddaad ganaxdiyo hadduunu sharci baarlamanku ka soo saarin haddaanu guurti ka soo saarin horta waxaa laga layidhaha baarlaman la yidhaha golaha baarlamankee la sheegaa waa aqalka baarlamanka oo laba guriya oo midna baarlaman iyo midna guurti yahay somalilan wuxuun bay u taqaanuu wakiilada inuu baarlamanka yahay magac uu naga dhexeeya laakiin laba af soomaali baanu kala leenoo qollo guurti baa la yidhahaa qollo wakiilo marka waxa weeye ama wakiil hala yaalo ama guurti hala yaale iyadoo sharci laga soo saarin ayaad gudaha dhigi karaysa waxaana ku filan maxkamad la geeyaba uma baahna laba saacadood ama saacadood u xidhnaado la yidhaha u noqoni gebigiisa bay taasa ku filan maxkamadda hala doonin qofka meel xun dhigayaad aragto oo la qabanaya sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ku hadlayey wasaaradihii kulankaasi ka qayb galay shirkadaha qashinka ka shaqeeya warshadayda dalka iyo xisbiyada qaranka dhammaantoodba halkaas ay ku soo bandhigeen talooyin la xidhiidha habka ugu mudan ee loo maarayn karo qashinka waxaa ku hormaray oo aynu soo qaadan doonaa cismaan ibraahim oo ku hadlayey afka warshadayda dalka environmentkii waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa dhul waa biyo waa hawo iyo inta u dhaxaysa ee uu la falmaalo bani aadam nafley iyo wax aliyaalo wixii kale ee ku jira dhulka de chemicals nafley environmentkaasi waxaasu la falgala inagu markaa environmentkii laba dhinacun baa loo eegaya wax in la protect gareeyo oo laga ilaaliyo wax siyaada ah oo disrupt gareeya ama khalkhaliya ama wax ka bedela ama xumeeya falgalkiisii iyo siduu ahaa wuxuu noqon karaa gas wuxuu noqon karaa solid wuxuu noqon karaa liquid wuxuu noqon karaa waxyaalo kale oo radiation iyo waxyaalaha sameynaya waxaa soo saari karaa wuxuu ka iman karaa sourcekiisu meelo kala duwan wuxuu ka iman karaa domestic waste waxa aynu maalin walba isticmaalaneen noocyada badan leh oo badiyaa ka yimaada consumerismka waxaynu consume garayno marka consumerismka iyo waste disposalku way isku xidhan yihiin kulu washrabu walaa tusrifu israafka waxay keentaa waxa aynu maanta ka cabanayno anu waxaan ka socdaa shirkadda kiibis oo qaabilsan degmadan koodbuur marka waxa weeyaan golis waa seminaarkii saddexaad ee 3 sano oo istaba socdaa qabteen horta iyagaan farriin weydiinaya aan kalmad weydiina waxay ahayd sanadkii horeeyay wixii ay qabteen inay halkaas soo dhigaan sanadkii ku xigeen qashinku halku mariyeen halkaas soo dhigaan maanta inay soo dhigaan waxa weeyaan maxaa horumar isbedel inaad soo dhigtaan magaaladii ma waxbaa u soo kordhay mise waxbaa ka dhimay waa rabnay annaga noo tahay faa'iido
إلا نيرحضو هل كي مالنتي هرون بعد فردان يحبط خروج هرس مر بعد سميسن واحد مودا waxa ugu adag maanta in haya waa wacyigelin la'aan sida imka ninkaas ka sheegay caagaga dambiga malaha warshadi male waa runtii waa export kuwa u baahan in si wada jir ah in looga wada tashada waa kuwa la tuurayo oo bedelay caagii yaraaye lightka ahaa ee warshadahoodii la xiray haddana kuwana bedelay kuwana ceebtu waxa weeyaan waa dadkiyo iyaga ayaa qof waliba gaarigiisa labada midh ku kacba meherada ka soo horjeeda ee markay dukaanka ayaa kay ka cabaan inamada fadhiya iyo ka meheradu ayaa wadada ku tuuraya marka ay markay istreedada ugu badan ee uu yaalo caagani ee baawulku ballaarinaya waa street ku socodka badanya waa street ku meherada badanya meherad aan caag loo sameeyay aad doorbin kalaha ma sameeyay nin waliba labada uu sharaabka ka cabo iyo labada uu biyaha ka cabo laamdu dhigayo ma gaarigu wuxuu ballaarinaya waa mahadsantiin hay'adda guliseen ugu casuunteen aan nimaadno halkan aanu dee waxyaabahan wax ka ognahay ama si waxiina wax ka sheegno qashinku waa dhibaatadeena wada saamaysa sidii looga hadlayayna way tahay oo dad badan baa si qaldan baalkii u maareeyo si la doonin ay u sameeyaan hadda xagga caafimaadka haddaynu ka eegno dee cudurro badan oo aan jiri jirin baa imka dalkeena jira imka 20 sano cudurro aan jiri jirin ayaa jira waxaana loo aaneynaya inkastoo aan research la sameynin lagu xaqiijiyo laakiin day ku dhowdahay oo study-geedin oo socda in waxya cudurradan badan imka loo maareelayahay badankooda ay ka yimaadaan waxyaabahaas ee inuu yimaadeen dibadda inuu yimaadaan si fiican la iskaga habeenin ay qashinka ay waxaas marka wasaaradda waxa jiri jirtay in la dagaalamo cudurkan la yiraahdo cudurrada fida yaa jiri jirtay infectious disease baa la yiraahdo kuwaas la dagaalami jiray imika waxa ku soo baxa nagu soo kordhay non infectious disease oo kansarki kamid yahay macaanki kamid yahay cudurro kale oo qofku dhiigkarki kamid yahay waxa soo dhanadii hore u meeyay jirin oo nagu soo bateen oo waxa way basir la'aanta hadee waxyaabaha inoo imanaya iyo ogaasha la'aantoodan bay la xiriidhaa ay qusaysaa wasaaradahan dee waxa weeyaan itaalkaygu intuu wuxuu yahay uun si wasaarada kale uga shaqeeyaan bay qayb badan oo quseeyo qashinkii waxa qabisan aanu leenahay gobol walbana way noo joogan 6 gobol way noo joogan dad waxaas inta ka biyaha ilaaliya qashinka la socda harimihiisa waxa soo dhan way socdaan laakiin haddana heerkii la doonayay imay gaarin oo waxa uu sababa dadkii waxaan ay wada quseeyeen baan wada shaqeyn lahayn waxaan magacay waxa la raamay raabi waxaan ka soo gobolka Hargeysa maraje xusba kulmiye waxa weeye barnaamijkan laga hadlayo deegaanka ma aha xusbiyana wax ka qaban karayaan cid kale wax ka qaban karaysa awalan waxa weeye shicibka oo iyagu muwaadin anagoo dad muwaadiniin ah oo dhulkooda u damqanaya oo qashin ku dhibaya oo wax ma dhibayaan ayaa ka qaban kara boqol sharciya dil soo dajeedo sharciga keenano dadku iyagu aanay ka soo goyn dhulkooda hagaajiyaan xoog cid wax kama qaban karayso marka wax weeyaan waxa la raayeen in horta wacyigelin badan dadka la wacyigeliyo oo xaafadaha kale marka lagu baraarujiyo oo iskuulada laftooda lagaga carruurta laga wacyigeliyo meelaha muhiimka ah oo dhan ilaa shicibku noqdaan dad muwaadiniin oo iyagu dalkooda u damqanaya qof baa imka tuuraya xashiish ama caagad wax ka cabay hadaa tareem maxaa turta maxaa gaab ku oranaya marka wax weeye ilaa dadku horta ay ku baraarugaan dalkan iyagu leeyihiin oo lugu quruxda badan ee macruud oo carraan ma caalamka daawadaan ay dadkii la hagaajisteen sida ka dhigeen ay u fahmaan cid waxba kama qaban karayso sharci ay galo keenaan iyo hadii ciidan lagu saaro cidna waxba kama qaban karto hadii shirkada lacag ku qaadato oo aan iyagu dadku aan iyagu dhulkaani dooneen hagaajiyaan ma soconayso marka anigu waxaan oran lahaa horta hoosta laga bilaabo shicibku horta xaafada wacyigelin badan hal la siiyo shirkadaha laftooda qayb ka lacag ka qaatay imika xashiish ku qaatay kontaraagyada waxa laga yaabaa inay dad yar afra ku tirso iyagu lacag iska bixin kara ka qaadaan inta kale inay wadana lacagta bixiso inay qaadaan ama geeyaan meel xaafadaha wadana inuu dhawaagtooda ay ku yara qariyaan habeenkii ama ay dooxa laftiisa geeyaan waana wadin bayna lacagta iska bixiyaan bisha shirkadu doonaysa ka qaadaysay marka iyaga laftooda in la yiraahdo war balcideen xataa bixin kareenin waxay xitaa wadaan qaadamatan waxa laga qaaday reerka qashinka qaada sidaan ogahay $5 la yiraahdo 15 kun ba iska bixiyay idinku intii aad wadana tamartiina xashiishka la ay qaadaan oo aanay noqon reerku haddaan $5 bixin kareen xashiishka ka tagaan
dabeedna mushkiladiisa halkii unta hallo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii kulan lagaga hadlayay maareynta qashinka oo magaalada Hargeysa ka furmay qashinka ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya dalkeena markii la beelsin waayay haddaba fariinta ugu dambeysay barnaamijka deegaanka idinku dhaafay ayaa sax xumo waa cudur ee ilaalihiida samida saxada deegaankaaga toddobaadkan barnaamijkii deegaanka aynu ku soo qaadanay waxyaabaha ka dhasha saxxumida deegaanka intaas baan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijku waxa uu si gaar ugu mahadnaqaya Axmed Ibraahim Cawaale waa khabiir iyo aqoon-yahan deegaan inta barnaamijkan dhigiya dib marka lagu kulmi doono inta ka horeysana Cabdicasiis Cayidiid Cilmi oo idinku dhaafay nabadgelyo amaanana iyo samqal dambe xiisa irti wada xasuuqnay wala dhuxushu may noqon maya kaymihi xagaafnay xalafku ya mudali maya كدوياهي حناني ديغانكو حكمي وحي لدا حناني ديغانكو حكمي وحي ارتي ودا حسوقناي ولا دحشو ما ينقن كيمي حقافناي حلفكو يا